Bismillahirrahmanirrahim. Dhammaan isimada ugaasha waxgaradka dhalinyarada haweenka saxaafadda xafladan sharafta la ka soo qayb gashay waxaan ku salaamayaa salaanta islaamka assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh. maanta waa maalin weyn oo taariikhi ah oo aynu soo abtarayno dhibaatadii muddada dheer soo taagnayd hadal kale oo soo dhaweyn iyo mahadnaqa waxaan u mahadnaqayaa qolada dawlad deegaanka Soomaalida uu hogaaminayo garaad kulmiye garaad maxamed waxaan u mahadnaqayaa soo dhaweynaya madasha ku soo dhaweynaya ergada inooga timi buuhoodle waxaan soo dhaweynayaa oo nasiib wanaaga ergada inooga timi taleex ama gobolka xaysimo oo ka mid yahay caaqil Ismaaciil Maxamed Cali Koore iyo ragga la socda oo ka mid ah labadii beelood ee colaadeedu muddada dheer ka taagnayd taleex oo iyagana ilaahay uu soo diray oo aanu mahadnaqayno ilaahay baa mahadle ergadii uu hogaaminayay boqor burhaan boqor muuse Soomaalidu waxay tiraahdaa waxaan kala soo dhaweynayaa ergada labada beelood ergada ka timi magaalada Laascaanood iyo Garoowe iyo cid kasta oo u soo quntay nabadan farxadeeda Soomaalidu waxay ku maahmaadaa xabaaluhu way isu faaraan ereyga waxaan leeyahay mar haddii alla maanta isu keenay labadii beelood ee taleex lagu heshiiyey iyo labadii jigjiga lagu heshiiyey barbarkay ka baxdaa waa bakayla qaleen waa dabal ogaada qolada ku soo tacabtay qasaaraysa waxay oranayaan kuwa baasbaanaga la gacanta noo galiye idinka kuwa wacan baa la gacanta idin galiyo idinku beegay war taas hal iska ilaaliyo labada beelood ee khayr cabdi iyo bahar samana wixii hadal haduu duxleeyahay hawraa loo yiri ilaa jigjiga la geeyay annagu hadaanu nahay beelahan hawsha in badan ku soo jiray qofku markuu bukoodo oo dalka gudihiisa waxba lagaga qaban waayo cudurkiisa waxa la yiraahdaa dhakhtar dabadeed cudurka waxba lagama qaban karee hal lagula quusto Hindiya iyo Pakistan iyo meelaha loo dhigo annagu go'aankan wuxuu gaadhnay wuxuu ahaa cudurkiina inaanu qaado jigjiga iyo dawlad deegaanka iyo walaaladii labaad mid ma qoraysaan de ummad kansar iyo cudurada dawada lahayn oo dabadiina lagala soo quusto wax la guriyahooda iska dhinteen gurigii ku celiya reerkii ha lagu celiyo iyo dawadii ay ku soo shubeen kuwa aan ilaahay qasaarayna ku caafimaad iyagana waa abaal guda labada mid baad noqonaysaan madaxweynaha dawlad deegaanka iyo raggiisana waanu u mahadnaqaynaa waxa kale oo halka uga mahadnaqayaa raggii ergada ahaa ee geela xerada marka loo oodo ee uu arooro waxa la yiraahdaa halka inta geelu soo noqonayo ku suga Soomaali waliba ha hadlo fikirkiisa ha hadlo jigjiga gartay soo noqday waana ku mahadsan tahay laakiin hawsha waxa qabtay waa dadkii deegaanka waayo rag baa 3 bilood halka u fadhiyay kii baabaay caawimadii la keenay u kala geynayay maxaan ku dhahdaa kuwaana xerqoodu ahaa qolada jigjiga waxaan ku soo ururinayaa ee dawlad deegaanka waynu ballanay maalintii ku kala anbabaxaynay saaxdheer iyo dharkayn dhexdooda ergadii gobolka ladan iyo idinku waxaanu ku ballanay annana dadka bukaan soo daweynayna idina xeradaas aanu idinku nimaadno ilaahay way sukeen nabad keenay xeradiina mar labaad oo idinku soo dhaweynay dadkii aad soo daweysayna waa keenay ilaahayna halka haynaga dul qaado shuushka waxaan kale u mahadnaqayaa hay'adda bishcas oo noo keentay taambuugyada oo la'aantood aan dhaxanta fadhii karin waxaan kale u mahadnaqayaa halkan maanta waftiga dawlad deegaanka waxaanu ku guddoonsiin doonaa ilaa madaxweynahooda Mustafa Maxamuud Cagtar shahaada sharafyo baanu ku guddoonsiin doonaa ergada garaadku hogaaminayaanu guddoonsiin doonaa hay'adda SFO oo madaxweynaha iyo maxaa ku raahdaa ergada garaadkaba ugu tala gashay shahaada sharafyo waxaan isla u mahadnaqayaa Cabdiraxmaan Jaamac Afweyne oo hay'adaha ka qayb qaatay oo muddadii 3 biloodba naf iyo maal isaguna dul dhigay